daawadayaal war caalamka ka argagixiyay oo ka soo baxay dowladda dalka Iiraan ayaynu idinkugu haynaa ilaaladeeda kacaanka xubinta ugu dambaysa ee barnaamijkan iyo Iiraan oo maanta cirka ku sii shareeray xaaladii xilli Donald Trump oo xanibay maraakiibtii Iiraan u socotay iyo kuwii ka imaanayayba jawaabtoodii oo noqotay mid aan la filaynin ayaynu idinkugu haynaa qaybta dambe ee barnaamijkeena haddii alla yiraahdo. dhanka kale waxaa lagu soo warramayaa dowladda dalka Maraykanku inay doonayso Cook Island inay qabsato isla mar ahaantaasna ciidamada Amphibianka ay u diraan oo markaa halkaa ka dagaalamaya waa sida wararka lagu sheegay. arrintaasu Trump u suurtageli doontaa mise uma suurtageli doonto xilli uu Trump wax allaale iyo wixii hanjabaada ahaa oo dhan uu 7 ka mida uu ku guuldaraystay tan khaatal uu xiray dekadaha Iiraanna la rajaynaya sida ay warbixino kala duwan ay sheegayaan in ay gabagaba iyo gunaanad ay tahay. qaybaha dhexe oo barnaamijka khiyaari waxaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla yiraahdo doodii khalaarayd ee ka dhacday baarlamaanka Ingiriiska iyo mowqifka dowladda Ingiriisku ay ka istaagtay dagaalkan. khiyaari meel kastoo aad dunida ka joogtaan marka ugu horreysa aynu ku bilowna dhinaca diblomaasiyadda ayaa iyada laftigeedu cirka isku sii shareeray xilli dowladda dalka Pakistan ay doonayso in ay arrintaa ka miro dhaliso. haddaba haddii aynu isla eegno arrimaha diblomaasiyadda iyo meesha ay marayaan wafdi heer sare ah oo markaa ka socda dowladda dalka Pakistan oo uu hogaaminayo taliyaha ciidamada Pakistan Asim Munir oo ah ninkii aad iyo aad u maqasheen dhowr jeer Donald Trump oo ammaan xad dhaafa kala dul dhacay ayaa hogaaminaya iyo mas-uuliyiin kale sida dowladda dalka Iiraan warbaahinta afkeeda ku hadasha ay sheegtay. wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka Pakistan Abbas Araghchi ayaana markaas delegationkaas qaabilaya oo soo dhaweynaya oo wada xaajood kale oo hor leh ayaa la yeelanaya oo Pakistan ay doonayso inay mar kale miiska wada hadalka ku soo celiso Maraykanka iyo waliba dowladda dalka Iiraan. kulankan ayaa la sheegay inuu yahay high level haatan daawadayaal waxa ay muuqataa Al Jazeera oo laftigeedu sheegaysa inuu markaas Field Marshal Munir iyo tiimkiisu Asim Munir iyo tiimkiisu hadda ay ka degeen dalka Pakistan waxaana la rajaynayaa in Iiraan fariin loogaga wado dowladda dalka Maraykanka oo markaas waxyaalihii la isku khilaafay la isku mari waayey ee dooda weyn dhaliyey dib markaas fartiin oogaga soo dirtay ayaa lala wadaagayaa dowladda dalka Iiraan ayaa lala wadaagayaa fadhi baa la qaadanayaa ballaaran. intaasoo keliyana ma ahan daawadayaal waxa kale oo jirta in ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan laftigiisu sida jariirada New York haatan ay tabinayso uu socdaal uu markaa ku marayo bariga dhexe isaga oo marka hore ku hormaraya dalka boqortooyada Sacuudiga maanta dabadeedna khadar ka sii aadi doona si arrimaha nabadeynta iyo isku soo dhaweynta iyo xaaladda gobolku meesha ay marayso iyo xalista weyn ee soo socota looga xaajoodo oo qayb ka mida ay tahay warka Iiraan hadda ka soo baxay oo aynu idinla wadaagi doono oo argagax hor la caalamka ku dhaliyay. wadaxaajoodkaas arrimaha ammaanka iyo amniga loogaga hadlayo iyo nabadeynta waxaa kale oo daawadayaal sidoo kale xigta socdaalka Shariif ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan maantoo 15 ilaa iyo 18 socon doona inuu kusoo gabagaboobayo ninka la sheegay midina daabkeeda inuu hayo ahna markaas ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan raalli ahaado waa ka xumahay Pakistan waxaa loola jeedaa madaxweynaha dalka Turkiga ayaa loola jeedaa in markaa halkaa la isugu tago oo meesha ugu dambaysa oo ay kasoo shidaal qaadanayaan meel la isla dhigaya ay noqoto dalka Turkiga. hore ayaanu oga hadalnay xiriirka Qatar Sacuudiga iyo Turkiga iyo Pakistan ka dhexeeya iyo waliba Siisi oo dhex boodaya. marka waxaa la leeyahay arrimahan waxa ay daaran yihiin arrimo waaweyn weeye. Erdogan qayb ayuu ka yahay iyo dowladda dalka Sacuudiga labadooduba Pakistanna waxay u badan tahay Iiraan iyo Maraykanku inay wada xaajood ay bilaabayaan barrito oo khamiisa inta aan la gaarinin weekendiga siday doontaba ha ahaatee ayaa la doonayaa in la isku soo noqdo
ayaa la doonaya in lagu dhawaaqo xilligii la isku soo noqon lahaa xilli maalinta salaasada ay lagu soo food leh ee 21 bisha ay soo gabagaboobi doonto labadii toddobaad ee xabad joojinta kumeel gaarka ahayd. waan soo dhaweynaa daawadayaal waxaa noo soo socda baarlamaanka boqortooyada ingiriiska oo markaas ay dood kharaar maanta ay ka dhacdo waxba la iskula haraynin iyo weliba ciidamada maraykanka ee la sheegay Cook Island inay doonayaan inay qabsadaan xubinta ugu dambeysana dowladda dalka Iiraan warbixinta ka soo baxday ee caalamka ka qaylisiisay ayaynu isla eegi doonaa meel kastoo dunida ka joogtaan khiyaaray soo dhawaada. ablicationka lacag dirista degdega ah ee MyRemit muddaan sugayo maskaxda ku hayee maantaan helay meeshii aan rabay iyo ma dhaafaan lacagta lagu diro waana nidaamka lacag dirista degdega ah ee MyRemit waa nidaam casri ah oo aad lacagaha uga diri karto dhammaan gobollada Soomaaliya, Itoobiya, Kenya iyo bangiyada Soomaaliya, bangiyada Itoobiya, mobilada EVC, Sahal, Maycash iyo dhammaan nidaamyada mobilka ee lacagta lagu diro. Haddaba soo degso MyRemit app, xawaalada MyRemit app ku dooro degdegsiimo iyo lacag diris goor kasta iyo goob walba. MyRemit app waxaad isticmaali kartaa 24 saac. MyRemit app waa fursadda ugu wanaagsan ee lacag diristaada. وهذاك الدولة وديال أدنى وما ستين هدي أنو كبح الحبنتاس رئيس الوزراء بقرطوية إنجليز كأياش شيء سكستو دونالد ترامب ودور جيرو أفكا وكقاضي وإن بدن وقفي حدنا إن يسال مرنبا أيسال مريكمكو أي إنجليز كوسرو قلان دولين إن أي دقالك أي كفر دقالمان مريكم كأي كفر دقالمان دقالك اللي معهن يوروب دقالك وادي دي taariikhdana ma dhici jirin in ingiriisku inuu jiiro dagaal maraykanku uu wado dagaalkii ciraaq koobaad baa xasuustaan kii labaad ayaa xasuustaan iyo meelo fara badan oo ay ka wada dagaalameen. si kastaba ha ahaato ra-iisul wasaaruhu waa diiday xisbiga mucaaradka ee tooriga ama conservativeka loo yaqaanana waxa uu ku eedeeyey in ay markii horeba rabeen in dagaalka ingiriisku uu galo haatana waagii uu barayey xilli dowladda dalka Spain ay si weyn uga soo horjeesatay Faransiisku uu diiday hawadiisa diyaaradaha Mareykanka ee hubka Israa'iil wada ama bariga dhexe ku socda inay tagaan Spain hawadeedii ay xiratay Yurubna ay meel wada jira uga soo horjeesatay maalinta Jimcahana kulankii ugu weynaa ugu xasaassanaa ee Hormuz sidii loo furi lahaa iyada oo aan dagaal Iiraan lagu qaadinin nabad loogu soo dabaali lahaa ayay ka shaqeynayaan madaxda reer Yurub oo ku shiri doonta Paris. Thank my honourable friend, the Royal Engineers in her constituency, and all those serving our country at home and abroad. We're proud to be investing a record £9 billion to deliver quality homes that they deserve. We're turning around army recruitment after the party opposite missed targets for 14 years. But the foremost responsibility to our armed forces are the decisions we take on military actions. My principles are clear. That's a sharp contrast to the leader of the opposition, who wanted to jump into the war with both feet without thinking through the consequences. Leader of the opposition, Kemi Bailey. Mr. Speaker, that was a very interesting answer from the Prime Minister. Lord Robertson, who authored the government's Strategic Defence Review, has said the Prime Minister has a corrosive complacency when it comes to defence. Why did he say that? Mr. Speaker, let me start by saying I respect Lord Robertson, and I thank him again. I thank him again for carrying out the strategic review. My responsibility is to keep the British people safe, and that is a duty I take seriously. That is why I don't agree with his comments. Last February, that was 7 months after taking office, I took the decision to increase defence spending from 2.3 to 2.6%, paid for by a difficult decision on overseas aid. Last June at the NATO summit, I committed to raising core defence spending to 3.5%. Last November, Mr. Speaker, the budget committed record funding to defence. I reaffirm those commitments now. The Strategic Defence Review is a 10-year blueprint for national security. The Defence Investment Plan will put that into effect. It will be published as soon as possible. We need to get it right. We inherited plans that were uncosted and undeliverable, and we're not going to repeat those mistakes.
Mr. Speaker, he says he doesn't agree with Lord Robertson. Lord Robertson is a former Labour Defence Secretary, a former NATO Secretary General. He also said, and I quote, "We are underprepared, we are underinsured, we are under attack." He said, Order. Sorry. xisbiga mucaaradka waxay doonayaan dagaalkan in Donald Trump iyo Netanyahu laga garab dagaalamo oo waxay u arkaan dagaal markaas loo baahan yahay in Ingiriisku uu kusoo biiro xisbiga talada haya ee shaqaalaha ah waxa uu aaminsan yahay dagaalkan inuusan ahayn dagaal reer Yurub dagaal Ingiriis uusan ahayn laakiin Ingiriisku danihiisa iyo dadkiisa bariga dhexe jooga uu diyaar u yahay inuu difaaco laakiin arrintu meesha ay ka gudunto waxa ay tahay in Mareykanka uusan doonaynin Ingiriisku inuu ka dagaalamo ka feer dagaalamo oo Yurub inteeda kale ay mar kale dagaal bariga dhexe ka socda haddana mar kale ay gasho gaar ahaan Ingiriiska haddaan xubinta intaa uga baxnay khiyaarta sharaftii kalaamada leh in badan waxaad maqasheen Donald Trump oo leh we will not rule out ciidamo inaynu geyno lug ah inaanu gudaha Iiraan ay gelino arrinta khubarada militariga ka digtay waxa ay sheegtay in ay dhimasho iyo dhaawac aan la soo koobi karin ciidamada Mareykanka ay soo gaari doonto halis weyn ay tahay balse korneelka caanka ee Douglas McGregor waxa uu sheegay in ugu yaraan 1500 oo ciidamada Mareykanka dhimasho iyo dhaawac inay soo gaari doonto haddii markaas gudaha dalka Iiraan la geeyo halis weyn ay tahay haddaba haatan waxaa soo taraya warar oranaya haddii dowladda dalka Iiraan maanta waxa ay ku dhaaratay ee ay sheegtay inay qabanayso ay fuliso Donald Trump wuxuu ku khasbanaanayaa in uu markaas dekadaha dowladda dalka Iiraan uu dib u furo oo markaas ay la xiriirin dekadaha Iiraan maraakiibta u socota iyo kuwa ka imaanaysa taasina waxa kaliya u haray ama fursadda kaliya Trump uu haystaa ay tahay markaas ciidamada dalaayadaha ku booda kuwa berda iyo beriga gaadiidka isku nooca watay haatan aad arkayseen in ay markaas ay Cook Island ay qabsadaan ama ay ku duulaan ma haysan karaan ma qabsan karaan waa dood weyn ayaa ka taagan isla mar ahaantaasna shidaalka Iiraan meesha laga dhoofiyo ay markaas isku dayaan inay haystaan intay haysan karaan waa dood badan baa ka taagan dabcan laakiin way isku dayi karaan awoodeedii iyo cududeedii military iyo khibradii leeyihiin khibrada militarigu waxay leedahay 100% ciidamadan way awoodaan intaas iyo in ka badanba in ay markaas ay sameeyaan oo waxaad xasuustaan in badan oo idinkeeda ka mid ah ciidamadan oo kale oo 1993 afartii habeenimo ee waqtiga London markaas soo galay magaalada Muqdisho ciidamadaas oo kale in halkaa la geeyo laakiin waxaa leeyahay go'doon ayay geli doonaan go'doonka markay ciidamadaasu ay galaanna Iiraan waxay leedahay waa meeshaan rabnay oo roob loogugu da'ay oo markaa dhulka hoostiisa daroono iyo gantaallo ay kaga weeraraan saadku uu ka dhammaado halis ay galaan wax la qabto wax la dilo iyo wax dhaawaca iyo wax baxsada ay noqdaan ayaguna dabcan khasaaro ba'an ayay geysanayaan oo dagaal markay timaado hal dhinac keliya dagaalku kama socdo dowlad cudud militari leh oo awood haysata oo maraakiibteedii dagaalka satellite-kii oo Iiraan uu dul taagan yahay duqeyn arxan la'aanana halkaas ay ka dhacdo ayaa markaas la saadaalinaya waxaa la leeyahay Donald Trump riskiga intaa leeg ma qaadan karo waxa uuna ogyahay cawaaqib xumada oogaga dhacaysa waxaana soo gabagaboobaya si degdeg ah oo premature ah madaxweynenimadiisa halkaa ayay ku baaba'aysaa haddaan dib ku celiyo daawada taariikh fog ayaa jirtay oo Iiraan markay 50 qof ay hadda ka hor qabsatay kacaanku markuu dhashay iyo xaaladii ka dhalatay ee Mareykanka ay qabsadeen waa tii markaas Jimmy Carter madaxweynihii dalka Mareykanku uu markaa isku dayay inuu ciidamadiisii dadkii laga qabsaday uu cudud militari kusoo daysto ay u suurtageli weyday taasina waxay sababtay inay markaas uusan dib dambe madaxweyne isugu sharaxin oo hal mar keliya oo madaxweyne noqdo isagoo aad u daliilaya mar labaad inuu isoo sharaxo oo siyaasadiisii markaas mustaqbalkiisii siyaasadeed Iiraan ayaa soo gabagabaysay Donald Trump dabkuu saaran yahay mise Donald Trump wuxuu ogyahay xaaladda jirta oo halkaa ma aadi doono ayaa la isweydiinayaa waa maxay warka weyn ee Iiraan ka soo baxay ee argagaxa leh ee aad wada sugayseen
وهاجاك أفين كو هذلي عيدمada dalka dowladda dalka Iran oo markaas ku sugnaa sida la sheegay xarunta dhexe ee ilaalada kacaanka ee Khatamul Anbiya oo magaciisa la yiraahdo General Ali Abdullahi la yiraahdo ayaa waxa uu sheegay haddii dowladda Mareykanku ay sii wado inay xanibto howlgallada dekedaha dowladda dalka Iran maraakiibta u socota iyo kuwa ka imaanaysa oo shacabkeena noloshooda khalkhal la geliyo arrintaanu ay sii socoto waxa uu yiri Persian Gulfka waa xiraynaa kow Sea of Oman albaabada ayaan isugu dhufanaynaa Red Sea-gana waa xiraynaa macnaheedu waxay ka dhigan tahay caalamka oo dhan ayaa istaagay oo wixii Suez Canalka iyo Babul Mandab inta maraan Suez Canalka ka bixi jiray halkaas Mediterranean ka sii aadi jiray Europe aadi jiray oo dhan waa istaagayaan wixii Hormuz marayna waa istaagayaan Sea of Oman wixii marayna waa istaagayaan saddexda albaabo isugu dhufanayna ay yiraahdeen Red Sea-ga xuutiga isticmaalayaan labadan dhinacna awoodooda military isticmaalayaan ayuu taliyuhu sheegay waxa uuna ku baaqay arrintaas inay suurto gelinayaan inay taabo gelinayaan sida ugu degdega badan haddii dowladda dalka Mareykanku aysan ka waantoobinin maraakiibteena ay xayirayso oo cunaqabatayn shidaalkeennii iyo maciishadeennii iyo dadkeenu waxay ku noolaayeen haddii sidaa la yeelo oo burcadbadeed Mareykanku isku bedelo shalaad baratay waa la shubi jiray annaguna albaab kasta ayaanu xiranaynaa waxa aynu kala helna ayaanu leenahay ayuu leeyahay oo xaaladda waxay gaarsiisay Iran meeshii ugu sarreysay waxaynu aragnay daawadayaal intii dagaalkan uu socday mar kasta oo dowladda dalka Mareykanku arrinta cirka ay ku shareedho oo la islahaa Iran way soo rujuuci doontaa way isbedeli doontaa Iran iyaduna saliidda ayay ku dhigtaa ama sheelarahay ku dhigtaa oo xidigaha ayay kusii shareedhaa marka escalation dominant waxa la yiraahdo oo ah markaas inaad maamushid adigu inaad wax cirka ku dalacdid awoodda aad leedahay taladu adiga kaa go'do midina daabkeeda aad haysid Iran ayaa Mareykanka kula dhigtay oo tiri steerinka waynu kula haynaa barbarkay u dhacdaaba waa bakayla qaleen arrintan ayay Yurub iyo caalamku si gaar ah isha ugu hayaan gaar ahaan warkan Iran ka soo baxay markaas Persian Gulfka Red Sea-ga iyo waliba Sea of